waxaa noo suurto gashay khadka Skype-ka inaan kula xiriirno mid ka mid ah xujaajta sanadkan ka tagtay Somaliland oo jeclaystay in aan magaciisa la xusin ama aan la sheegin. Xaaji marka hore insha Allah waxaan Ilaahay idinka rajaynaynaa in hawlihii xajka ee aad sanadkan ku jirteen Ilaahay idinka aqbalo oo dambi dhaaf iyo maaragtay abaalmarin weyn aad ka heshaan. Intaas kadib waxaan ku weydiinayaa hawlaha xajku sanadkan sidee u dhaceen. aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal xasan ilaahay ha kaa walmariyo ducada dhammaan ummadda muslimiinta ilaahay dembigooga ha dhaafo inta xajistay iyo inta aan xajin sanadkan ba ilaahay dembigooga ha dhaafo marka guud ahaan wallaahi haddii aan waxoogaa intii anigu aan arkay xajka aan sheego horta waa sanadkii ugu horreysay markaa meel fara badan baa lagu cusbaa laakiin dad fara badan oo aad u tiro badan baa wadanka yimiday ama meeshan barakaysan ama kal mukaramo marka dadka lagu qiyaasay ilaa 2 milyan iyo saa'id wadan kasta oo waxaan u malaynayaa adduunka korkiisa ku yaalana kulley dad baa ka yimiday marka dadku aad bay u fara badnaayeen guud ahaana si habsami ayuu socday xajku xajka waxaa loo diyaariyey qalab aad u fara badan hadday tahay safarka hadday tahay meelaha lagu nasanayo hadday tahay meelaha suuliyada iyo xamaamiyada hadday tahay meelaha la degayo aad baa laga shaqeeyey wax fara badanna kolley dowladda sacuudi wadankiisa ay ku taalla xajku way diyaariyeen ilaahay ha ka abaalmariyo guud ahaan markaa xajku aniga wuxuu ila muuqday si fiican buu dhacay si aad u wanaagsan buu dhacay intii labadii dhacdo ee maaragtay ka dhacay ku dhimatay mooyaane dadka kalena si fiican bay wax xajiyeen oo dhamaysteen labada dhacdo markaa bal haddii aad tii wiishkii soo dumay ku horeyso iyo tan dambe isjiirjiirkaaba aad israaciso aad dul marto sidee u dhaceen wallahi xasan walaal taa hore ee maaragtay wiishka soo dumay anigu maan joogin 2 cisho ama 3 cisho ka hor intaanan makal mukarama imanin bay u dhacay yu shilkaasi dhacay laakiin waxay ku maqaalaa in dadka qayb ka mid ah qaybaha dhismuhu ka socda hadda dad joogay inuu isku soo baxay roobab iyo roobab meelsha ka taagay ama xasha ku taagay oo dabaylo watay awgood inka taasi way ka horeysay tirada ku dhimatayna kulley qiyaastii warbaahinadu way qoreen laakiin taas aniga iga horeyso man joogin tan dambe laakiin waxay dhacday daraad dabcan habeenka mustalifo loo soo hoydo maalinta carafo la joogay 9aad galabnimada marka cadeedu dhacdo maqrib ayaa kasoo baxaa carafa waxaa lagu soo hoydaa markaa mustalifa oo minaa u jirta ilaa 4 kilomitir ilaa 3 kilomitir u jirta halkaasaa markaa la seexdaa oo sida sunnuhu uu yahay lagu bariyaa aroorta marka subax la tukado ayaa laga soo hayaamaa inkasta oo dadka ducafada wada iyo dadka jilada san loo ogol yahay 12 habeenimo wixii ka dambeeyay inay kasoo hayaamaan marka qof walba ama 12 soo baxo ama salaad suxur ku tukada soo baxo wuxuu hiigsanaya ama uu beegsanaya inuu jamaraadkii yimaado oo dhagaxii tuurto marka anigu alxamdulillah العالمين waxaan ku soo beegnaa ama aan imiday jamradka ama dhagax tuurashada 6:00 subaxnimo markay tahay marka 3:20 oo ka soo baxnay Mustafa 6:20 waan soo gaaray jamaraadka waan tuurtay markaan tuurtay kadib anigu toos waxaan u tagay xaafadii aan mina ka deganaa laakiin 8:20 markay tahay ayay saxmadii sii korodhay dadkuna waxoogaa way yarjaha wareereen oo mina dhinac walba oo laga soo galay marka hore waxaa loogu talagalay in waddo keliya ama dhowr waddo oo aad u waaweyn laga soo qabtado mustalifa waddooyinkaasaa markaas toosa ku geynaya halka jamaraadka ama halka dhagaxa laga dhanayo marka dadku waddooyinkan ka baydheen ayay xaafadda ama mina ku wada leexdeen qaar badan baa mina ku leexday kadibna xaafadda mina dhexdeeda meel 4 wadda isku yimaadaan ayay 4 kooxood oo aad u badan ayay isku hoyday 4tii wadacdo way isku yimaadeen isku markaa 4tii murabbac isku yimaadeen ayay isku yimaadeen sida aniga igu maqaalaa beesha aad u ballaaran tahay oo lama ogaan karo oo
kartid ama kuma wareegi kartid oo ma ogaan kartid laakiin sida adigu way idaacada uga dhageysanaysan uga dhageysanaynin kadibna afartii wadaanka ay ku sameeyeen dadkii isku yimaadeen waa isbuurteen kadibna meeshii waxay noqotay biyo wareegeysanaya oo kale sida igu maqaalaan macnaha dadkii dhinac dhan walba waa laga socdaa dhinacay markaa isku wada raacaan oo ay u wada socdaan ay u geystaan markaa way isku waafaq waayeen kadibna dadku markaa way isbuurteen dadka naqaskaa ku dhagay dadka qaarkood taabuugyada bay fuuleen dadka qaarkood meeshii aan soo marnay markii dambe waan aragnay oo gidaaradii ay dumiyeen markaa shilka ugu badan afartaa meeshaas ka dhacay walaal saasina dadku markuu buurtay marka dadku waxay u dadkii carabaadka saarnaa ama baaskilada dadka lagu ridaxay saarnaa dadkii waday dadkii jilicsanaa dadkii wadna xanuunka lahaa dad caynkaas oo markaa marka horeba tabarta raayo jilicsanaa ayaa markaa dadka inta badan ku dhintay dadkaasaa kamid ah tiraduna sida la sheegay dee midiyu qoray ama warbaahinta 700 iyo 12 kor u dhaaftay dhaawacun ilaa 800 markaa walaal ilaahay u naxariisto dadkaa dhintay annagana waxa weeye ilaahay xajkayga aan laga aqbalo saasay markaa u dhacday saan anigu maqlay maaragtay intaan ka ogahay marka ciidankii kala hagayay iyo kala hagaajinayay isgoysyada markaa way ka maqnaayeen miyaa meel cidla ay ahayd markaa oo ay dadka uun afartii isgoys dhinacyada ka soo galeen kolley lababa way u dhici kartaa ma hubo oo xaqiiqatan ma hubo maaragtay wax u dhaceen dhabta laakiin waxa sababay laba shayba way dhici karaan in aanay maaragtay ciidamadii kala hagayay sida trafficada baabuurta dadka u kala hagayay ay markaa dhacayeen meesha oo qola ay si khalad u soo gashay meesha oo qola kale ay saxsanay way dhici kartaa waxa kaloo dhici kara in dadku ay ka tambateen ama ay ka awood bateen ciidankii meesha joogay oo ay xoog ku soo jiireen kadibna ay iskugu yimaadeen markaa meesha marka waxa weeyaan labadaas yaabood way dhici karaan laakiin ilaahay ka abaalmariyo dowladda sacuudiga aad bay u dadaalaan ciidan aad u fara badan oo khayr caadi ah meel walba jooga laakiin waa laga xoog badan yahay meel 2 milyan iyo sayidina isku yimaadeen waad qiyaasi kartaa kulli maaragtay sideedii marka dadka Soomaalida dadka dad waliba isla acmaal kaliya wada gudanaya isla shay kaliya wada qabanaya isla hadaf kaliya wada dhan wada socda oo haddana 2 milyan iyo sayidina oo hal mar inay wax wada qabtaan raba hal mar inay dhinac wada turtaan wada raba hal mar inay dariiqa wada maraan raba way adag tahay laakiin way dadaalayaan kulli waxa weeyaan sacuudigu iyo ciidamadoodu si fiican bay dadka u kala hagayaan dadka Soomaalida ku dhintay tiradooda ma la garan karaa isjiirkaas wallahi ma hubo tiradaasi anigu ma xaqiijin karo ma oran karo intaas qof ku dhintay ma oran karo aad iyo aad baad xaaji u mahadsan tahay ilaahayna xajkeeda ka aqbalo آمين هذه أدوار الماسن تاني دمان ومدة سوماليات iyo umada muslimiinta meel kasta joogaana ilaahay dambiga ha dhaafo qulubtoodana ha wanaajiyo hana jeclaysiyo dad adagna ha ka dhigo